anigu waa ileeyihin dadkaygii hiqaabta kugu socota diintaadii aad ka bahday waad ku iyaartay keliya diinta islaamka aad soo gashay faa'iido kamaad helin hanuun iyo murugo dhibaato waxaanan ahayn waan idin baryayaa i aaguya muhiim muslino i aaguya ilmaha yar ii badbaadiya ilaahay baa badbaadiye diintana leed u soo noqo waa diintee waa yahuudi weeyaan waa israa'iil bay joogtaa iyadu waa kristan weeyaan ma jirto way tiri diintaada dad ku soo noqotid inantaada yar way bogsanaysaa waayo nebiyo aad u badan baa soo kacay nebiyaa jira diinteenni maanta aad bay u adag tahay u kaalay bay igu tiri diintaadii u soo noqo diintaadii u soo laabo qaladkii aad gashayna dembi dhaafka anaa kuu weydiinaya anigaa kuu weydiinaya anigaas dhiibaya bay igu tiri maxaa ka xanuun badan marka la isku xidho caafimaadkaaga iyo diintaada tani waa sheekada xanuun kale ee hooyo ka dhalatay qoys haysta diinta kiristaanka balse iyada iyo carruurteeduba ay qaateen diinta suuban ee islaamka hooyadan waxaa haysato dhibaato taasi oo ah inay ka xanuunsan tahay inanteeda oo jirta 14 sano waxaa inanteedaasi ka soconaya dhiig aan kala joogsi lahayn ilaa lagu mudo irbad dhiig joojiya qoyskeedii waxay ku xidheen si ay ugu daweeyaan inanteeda inay ka soo baxdo diinta islaamka isla markaana ay ku soo biirto diinta kiristaanka iyo sidoo kale diinta yuhuudda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waanahay qof qariib aanan waddankan u dhalanin inan inanta yar oo iga hanuunsanaysaa hanuun aad u weyn baa inantayda hayaa sanad iyadoo jirto hanuunkan iyuu ku dhacay deeta inantayda yar waxaan islaa way kuu bogsanaysaa markay weynaato iyadoo yar baan dhaktaraan la maray dhaktaro badan waa idhaahdeen markay weynaato qaangaar gaadho inantaada yar way kuu bogsanaysaa hanuun dhibaato ama hayo deetan hanuunkii wuxuu isu bedelay inaana inantayda yar ayna bogsanin hanuunkeedii markay weynaataba ula weynaado dhiigbah aad u badan oo markay gaangaadhe hagga hoosana ka imanayo aan istaageenba iskuul madaaris meel walbay dhiganayso inantayda yar laga soo saaro dhiigbaha awgeed laga soo saaro inanta yar anu waalid baan ahoo madrasad iyo iskuul uma raaci karo haddaanan raacayna macallin irbada intuu qaado ma mudayo inantayda yar inanta yar aad iga bugto in aniguna waxay aagunayo maanta oo iyo aabbo iyo walaal aanan haysanin anigu dadkaygii muslim ma ahaanu qof soo islaamay baan ahay deeta walaaladay iigu dhowo adduunyana haystaan ilaahay wax walba siiya ay leeyihiin hiqaab baad ku jirtaa tiintaadii haddaad ku noqotid ilaahay inuu kuu bogsiinayo inantaada iyo adiguba muddo 16 sannadood baan buka anigu naqaskii baa igu dhigaa naqaskayga waa ii dheer ilmahaygii oo bugto dhiig bahayso haddaan is idhaahdo hore ula gaar farmasiiga jaarkaan lala gaari karayno inantayda yar oo dhiigbaha markuu ku dhaho naqasku igu dhego aan eego ayaay haystaa markaa inanta yar maanta waa 14 jir weeyaan 14 sannadood inantayda yar 2 maalinoo isku higto iyadoo dhiigu ka maqan yahay maarko dhiigu ka socdaa markaa walaalada islaamka dhammaanba islaama waxaan ka odsanay inantayda yar inay meel ay dawadeedii looga helayo liigeeyo wixii afrikee dhaktarada jiraan oo dhanna waa la soo maray inaan waxba laga qaban karayn baa lii sheegay marka inaad aawisaan inantaa yar dawadeedii halka looga heli lahaa inaad garab qabataan inantaa yar ii aawisaan waayo anu qof islaamaan ahay cid kale ma haysto muslimka waxaanan ahay mana been idiin sheegayo ilaahiguma oga diintaydana iyaar lama geli karaayo anigu waayo sababto diintayda anu way waabaan ogaaday inay diinta islaamka tahay daydkaygii laakiin ma oga waxay leeyihiin diini ma jirte kaale diintaada ku soo noqo waan idin baryayaa i aaguya muhiim muslino i aaguya ilmaha yar ii badbaadiya ilaahay baa badbaadiye ii badbaadiya ilmaha yar allah ni aaguya halkaan anuan ka baahday ilaahay ninba baahiye i aaguya wejiga islaamkaan hortaaganay aaguya كل dad badan oo islaama baa daafaha dunida naga daawanaya bal maadaama tiri family-geygu kala diin baan hayo iyagu waxay haystaan diinta islaamka ma haystaan
hadallada kugu xanuunka badan leh ee qoyskaaga kaaga imanaya ama ay kugu xujeeyeen bal maamuna la wadaag anigu waxay leeyihiin dadkaygii hiqaabta kugu socota diintaadii aad ka bahday waad ku iyaartay keliya diinta islaamka aad soo gashay faa'iido kamaad helin hanuun iyo murugo dhibaato waxaanan ahayn anigu alxamdulilaahi waan faraxsanahay wax dhibaataan diinta islaamka aan ka sheeganayaa ma jirto sababtoo ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan unawaan abbaa muslim bay garab taagan wax walbay siinayo dawadeydii iyo dawadii ilmahayga iyo raashinkaba iyuu ka badan yahay waan una waxaasoo dhan bilaash baan ku helaa gurigaa liigu keenaa muslim bay garab taagan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin diinta islaamka anu kumaan daya'min aad baan ugu fiicanahay alxamdulilah walaashay waxay leedahay iga weyn tahay oo dadkeediina waan hayaa qofkii afka garanayo uu dhagaysan lahaa waxay tiri nebiyaa ayaa soo kacee nebiyaa jira ayaan kuu geynayaa inantaada yaray bogsanaysaa aniga ayaa ballankaaga qaadaya bay tiri hadday inantaada yari bogsan weydo anigaa naftayda ilaahay u diraya inay inantaada kugu bedela inantaada sida ay kugu bogsato ma jirto bay tiri diintaada haddaad ku soo noqotid inantaada yaray bogsanaysaa waayo nebiyo aad u badan baa soo kacay nebiyaa jira diinteenni maanta aad bay u adag tahay u kaalay bay igu tiri diintaadii u soo noqo diintaada u soo laabo qaladkii aad gashayna dembi dhaafka anaa kuu weydiinaya anigaa kuu weydiinaya anigaas dhiibaya bay igu tiri diintan leed u soo noqo waa diintee waa yahuudi weeyaan waa israa'iil bay joogtaa iyadu waa kristan weeyaan markaa walaashay waa la dhashay hooyaday yaa aabbahay baa dhalay waa walaashay mar walba way la soo xiriirtaa marka dhibaatada iqaabkaa kugu socdo si aan kaaga rogo iskaa kaalay bay leedahay anigu laakiin meel aan tagaa maantaan diinta islaamka ahayn ina ma jirto ma arkayo diin aan tagoon alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xataa hadduu ilaahay sidaa iigu talagelay inaan adduunyada ka tagno anigii ilmahaygaas waan ku faraxsanahay diinta islaamka carad haysataa maamo 3 yaalaa baan haysta uu muslimka i caawinayo adiga aniga iyo dhammaanteenba ma caawin karnaa hooyadan wax yar oon agtaada wax buuran ka ahayn laga yaabaa inay farxad geliso hooyadan sidoo kale waa suuragal in hooyadan ay caafimaad ugu hesho inanteeda ka xanuunsan muddada 14 sano